maagtay qaamuuska ku kaydiyo qabyada ka jiriye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبون داوديال كنا سو دواده عدد كميد برنامجكني قلنكا يا قونتا برنامجكنا قلنكا يا قونتا waxaan cadadkiisani aan ku soo bandhigaynaa buugga cilmi boodhari cilmi boodhari waa sheeko caan ah gaar ahaan caan ka ah Soomaalida dhexdeeda waxayna yiraahdeen cilmi boodhari waa boqorkii jacaylka hase noqotee buuggaasi oo uu qoray Dr. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo isagoo ah qoraa isla mar ahaantaana ah gudoomiye ku-xigeenka Akaademiyadda Afka Soomaaliga gudoomiye ku-xigeenka Erika waa macadka cilmi baarista madaxa bannaan ee Geeska Afrika waxaana uu ka tirsan yahay aqoonyahanada jaamacadda Djibouti isla mar ahaantaana aqoonyahanada dalkeena buuggiisani waxa uu ku sameeyay cilmi baaris weeyaan buuggani marka laga hadlo nuxurka buuggaasi oo cilmi baad uu ku soo bandhigayo ka waramaya sheekadii cilmi boodhari buuggan dabcan laftarkiisu turjuman yahay oo afka Soomaaligana waa lagu heli karaa hanu soo gundadhoca barnaamijkeena sidoo kale waxa aan u mahad celinaynaa rugtani aan markani aan martida u nahay waa macadka daraasaadka cilmi baarista ee Djibouti oo agaasime ka yahay mudane Muuse Cali Miigaaga waxa kale oo aan u mahad celinayaa agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha dhaqanka iyo islaamka mudane Ducaali Xasan Axmed iyadoo sidoo kalena aan u mahad celinayay aqoonyahanada nagala qayb qaadanaya cadadka barnaamijkeenani barnaamijka soo kale waxa nagala qayb qaadanaya waa Cabdilaahi Axmed oo isaguna qayb ka soo akhriyay buugga balse ugu horeyn inta aanan barnaamijkeena gudagelin kelmad hay noogu furo agaasimaha macadka daraasaadka mudane Muuse Cali Miigaag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal maxay soo dhawaada halkani macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamka ee Djibouti waxaan ku faraxsanahay in maxay maanta aan halkan ku soo dhaweeyo Dr. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo qoraal ah oo maxay buugga cilmi boodhari ka hadlaya iyo irtideeda saaxiibada irtideeda maxay halkan maanta barnaamijka maxay kuna martida noogu ah waxaan soo dhaweynayaa asxaabtayda halkan joogta maxay maanta sida waxaan uga soo qayb gashay qorta maxay ku dheeraan maayay intaan mikrofoonka aan dhiibin waxaan oran lahaa yani in yar baan doonayaa inaan ka hadlo maxay macadka daraasaadka diblomaasiga uu 3 jirsaday madaxweynaha ayaa furay maxay bishii shanaad 24-kii 2014 waxaana loo furay maanta baahi yaa taala horta aqoontu waa lafdhabarka horumarka haddii aqoon aan lahaynin waa nin midow socda tareeg ma laho markaas waxa weeyaan maanta yani wadankeena waa meel ku soo beertay oo kaalin weyn oo cilmi baarisuna waa qayb yani ka ah maxay shaqada ay hayso macadku ay qayb ka tahay waana lafdhabarka oo waxa aan dhigno daraasaadka meesha lagu dhigo haddii cilmi baaris lagu dabiqi waayo wixii hore baa la wadwadi waxa jadiidkii hore marka maanta la isku dhaafo aqoonta maalintii uu madaxweynuhu halkan noogu yimid u furayna wuxuu yiri maxay ahayd yani mandaqada aan ku naalo waa in wax la qaybsado ay diblomaasiyaddu baa lagu dhaxgali karaya markaasi maantana wallahi alxamdulillah instituga maxay macadku maanta waxa uu kamid yahay macadada tirsan maxay ahayd maanta mandaqadeena igaadka oo aan maxay ahayd ku biiro maanta maxay ahayd inagu aan halkani aan Djibouti nasiib u yeelanay in aan ku tababarka ugu sameeyno diblomaasiyiinta wadanada jaarkeena oo sanadka dambana aan shaqada bilaabi doono marka dhalinyarta jaamacadaha dhigta in dheer garatada dadka halkan fadhiya maanta yani nasiib ayaan nooleeyahay maanta hadaan soo gaarnay way ku inagu horeeyay ma ilaahin macadi caynkani waad aragteen oo hadii diblomaasiyaddu kulli aad la socotiin yani wadankeenu waa wadan yar haddana
shalay waad arkayseen madaxweynaheena in yacni shiinaha lagu soo dhaweeyey sidii madaxweyne waddan weyn ka socdo markaas waa siyaasad waxaasi waana aqoon taasi in yacni ay qoraalyaasha amba maxay ahayd ay cilmi baarayaashu ay ka hadlaan oo ay ku galaan oo sheekadaas yacni waa farxad weyn weeyaan kamaanta reer Djibouti ee maxay ahayd laba dawladood aan marka la eego baaxadooda aan isku dhigmi karin laakiin haddana ay leeyihiin siyaasad baa laga keenay marka in siyaasaddaasi laga hadlaa anaguna anigu yacni mas'uulka macadka waan inagu dhiirigelinayaa inaad halkan timaadiino wixii yacni aan nila qaban kareennaba aan nila qabanno maanta walaalkii Cabdirashiid yaa furay laakiin dee waxaan rajaynayaa inaad soo daba socon doontiin hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan salaamayaa adna maxay ahayd Aamina Dr. Aamina oo iyadu ururka madax ka oo de maxay ahayd in badan aan is aragnay maxay ahayd dhiiringelin badanna aan isku sameeyay labada dhinacba kaasi waxa kale oo jooga halka Cabdilaahi Cawleed saaxiibkay diblomaat soo noqday isna oo maxay ahayd nin qalina wax qora isna maxay ahayd uu ku soo biiray ka waxaan leeyahay maxay ahayd soo wada dhawaada gibigiina maxay ahayd waanad mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay agaasimaha macadka daraasaadka cilmi baarista Djibouti mudane Muuse Cali Migaag markan haddii aan barnaamijkeena aan u gunda dhacno anoo soo dhaweynaya qoraaga buugani cilmi boodhari ugu horeyn ha weydiiyo Cabdirashiid Dr. Cabdirashiid buugan qoritaankiisa xilligii aad bilowday iyo sidii aad ku bilowday iyo adoo isku kaya daraya marxaladihii aad soo martay intii buugan aad qoraysay assalaamu calaykum marka hore hibaaqaad baad mahadsan tahay martiqaadkan halkan noogu soo fidisay oo halkan noogu soo fadhiisiisay mahadnaqaba kulleyba waxaa kula qaybsanayaa agaasimaha macadkan aan fadhino macadkan daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda mahadnaq weynna waxaan u dirayaa runtii Ducaale Xasan Axmed oo agaasimaha dhaqanka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diiniga iyo waqaafta waxay la qaybsanayaa mahadnaqaas asxaabta halkan wada fadhida oo ugu horeeya gudoomiyaha Erika Amina Dr. Amina Saciid Shire Idris Beksi Cabdilaahi Cawleed oo nusaalag dhowr iyo 30 sano iyo inta kale halkan noo fadhida haddaan soo noqdo su-aasha runtii marka laga hadlayo dee cilmi baadhis welibana dee dalkeenu haddaa si loo eego cilmi baadhistu ay ku cusub tahay haddaa si loo dhigo iminka jaamacaddu waxay furan tahay waa in maxay ahday 15 sano marka cilmi baadhista iyadoo sida kaleba dhibteeda leh markay ay tahay bilowna dhibteedu way sii badan tahay markaas ma faahfaahin karayo laakiin xaaladaha la soo maray waxa weeyaan horta arrintanba siday ugu soo gashay marka hore waayo anu takhasuskaygu waxa weeyaan waa cilmiga afeedka waxa la yidhaha linguistics oo linguistiga marka arrintan waxay ka hadlaysaa sugaantii gaar ahaan sugaanta Soomaaliyeed marka siday arrintan ii soo gashay baa iyaduba iska cajiiba amba wax maxay ahaday iska qadara runtii haddaa si loo dhigo waayo de anigu sidii aad ogtihiin sidii qof walba halkan uu u malaynayo sheekada inay tahay amba u dhisnayd baan qabay sheekada waan ka wada hadli doonaa markaas maalintii ugu horeysay si fiican baan u xasuusanayaa arrintan cilmi boodhira ay igu soo baxday maqaal yar oo lay soo tabiyey oo berigii waxay ahayd welibana hawl kale aan ku jiray hawl culus baan ku jiray waxaan dhammaynayay teeskayga marka maqaal baa islaantii hageysay teeskayga directricekeedii maqaal ku saabsan sugaanta Soomaaliyeed bay soo tabiyey soo Francisco qoran waxaa maqaal ka kooban 4 xaashadood maqaalkaas oo ka hadlayay buuggii ugu horeeyay mala awaalka ahaa af Soomaaliga lagu qoro markaas buuggaas maqaalkaas mar labaatan buu itoosiyey runtii markaan akhristay weliba dee u gaabnaa markaas si degdeg aan u akhristay markaa waxaa ku qornaa waxaanan aanan markii hore fikir aan sheekadan ka haysan oo ah cilmi hodan weligii lama kulmin sheekadan kelibu ku ahaa iyo wax siyaasa
annas dee sheekadan waan ka wada sheekaysan doonaa sidaa iilamay ahayn. markii dambena waxaa dhinac baan ila dhigay, waxaan markii dambe gacanteeda soo gashay buug lagu soo keediyey sugaantii sugaanyahanada amba abwaanada waaweyn geega Soomaaliyeed. taas baan ka dhaxlay dhowr gabay oo uu tiriyay Cilmi Boodheri, qaarna midna uu tirin isagu markii dambe aan ogaaday markaan daraasada ku samayn doono. laakiin taasna wax cusub bay haddana igu soo birtay oo runtii wax aad iga fajiciyey. ta saddexaadna wuxuu ahaa documentaire amba documentary Universal TV ay samaysay oo ku saabsanaa sheekadan Cilmi Boodheri, oo marka aan dhageystay amba aan maqlay amba aan daawaday filimka gaaban 30 daqiiqadood socday, de waxyaalo runtii cusub bay igu soo beerisay. markaas de labadaas 3 sanadood waa in sheeko socotay bilowgeedii 3 sanadood, markii dambena 2 sanadood oo kale bay ku beertay. marka de kulliba wax isdaba joog ma ahayn, laakiin kolba waxba ku soo beerayay fikraddu kolba way sii dheeraanaysay. markii aan u kacay kolkan teeskayga dhameeyay 2011 aan sheekadan u kacay, markaas bay ilama adigu sanad iyo badh intaan tegay Berbera, intaan wareysanayay, intaan ninkii hodan inankeedii aan la xiriirayay, intaas waxay qaadatay waqti. markaas waqtigaasna dee inta badan waa waqti aan geliyey iyo dee wax walba iga galeen. markaas dee wakaas siday adigu sheekadu ay bilaabantay. cilmi baaris ahaanna maanta halkan kuma soo koobi karno, laakiin laga yaabaa inaan barnaamij kale u sameyno cilmi baarista iyo dhibta iyo dhibaatada iyo wanaagga iyo waxtarka ay leedahay. kolley cilmi baaristu waa hawl adag oo qoraagu marka uu doonayo qoraalkiisa inuu cilmi baaris uu adeegsado waxaa galayaa marxalad iska adag. balse haddaan soo gunda dhacno nuxurka barnaamijkeena buugga yaana guntiisa qadar yar galaynaa Dr. Cabdirashiid. buugga waxaa markaan yar akhrisanayay waxaan ka arkayay inaad erayadii qaar turjuntay suugaantii oo aad hal tabinayso. horta buugga wuxuu ku qoran yahay Faransiis, waanan kugu hambalyeynayaa waayo marka dhaqankaagii aad luqad kale ku qorto waxay ka dhigan tahay waad hal tabisay. oo imika qofka ajnabiga ah ama afka Soomaaliga ku hadal ama dhaqanka Soomaalida waxba ka garanayn waxay aaminsan yihiin iyo waxyaabaha ay isku soo tabiyaan dhaqan ahaan ama caado ahaan ayna garanayn. markaad af ugu dhaweyso ka duwan afkaagii inta afka ku hadasho oo dhan waxbay ka fahmayaan bay ka dhigan tahay. marka sheekada Cilmi Boodheri oo aan oran karo qayb bay ka tahay dhaqanka Soomaalida, waayo maanta qof kasto Soomaaliya sheekada Cilmi Boodheri sidoo doonaha u maqlo sidoo doonaha ku soo gaadho, laakiin way gaarsiisan tahay. waxa kale oo caan ka ah Soomaalida dhexdeeda suugaanta inta leeg Cilmi Boodheri xilligii uu tiriyay ay ka waramayaan. qaar bay dhahdaa waa wade ninkii Soomaaliya u horeeyay jacayl uu qabto oo marka Soomaalidana jacaylku ku cusbaa ama ugu buu ku ahaa. si kastaba ha noqotee balse waa fikirkii ama dhaqankii Soomaalida oo aad qadar ku tabisay af aad ugu dhaweyn karto oo afka Faransiiska. waan jeclaan lahaa afaf kalena ina lagu sii turjumo maadaama cilmi baarisna aad ku soo ururisay. balse xagga haddaan qadar wax ka weydiiyo turjumaadaha iyo ereyada waa laba laaqadood inkastoo takhasus ku tahay xagga luqadaha in la isqabadsiiyo way adag tahay. sidee iyaad ku dejisay baa la oran karaa. maxaase ereyada qaar aad turjuntay ama suugaanta qaar aad turjuntay maxaad adigu yani ugu fikirtay inaad turjumto oo u dhaweysid waa marka buugga dhexdiisa waxyaabaha ku qoran ee aad turjumtay iyadoo buug kalena uu jiro gaar u turjuman. horta hibaaq sidaad u sheegtay weeye buuggan adna sidaad u dareentay waa anna runtii sidaan u dareemay kolkii hore sheekada Cilmi Boodheri weeyaan. maxay tahay? waxa weeyaan sheekadan waa sheeko cajiiba, waa sheeko aan la qaybsan karno adduunyada. ani gaar ahaan sheekadan iyo way dhaafsiisan tahay buuggan. danta aan ka leeyahay buuggan amba sheekadan waxa weeyaan
carabkana uu ku dhuftay maxay ahayd gudoomiyaha Muuse Cali Meegaag markuu ka sheekeynayo markuu ka hadlayo cilmi baarista iyo aqoonta waxa weeyaan waxyaalo runtii aad u muhiim aad u sareeya dhaqan ahaan taariikh ahaan murti ahaan baa horta dee dadkoo dhan wada leeyihiin dee inaguna waanu leenahay markaas in dadka horta inaguba horta aan ogaano maanta dhalinyartii waxay la tahay waa barnaamij kala gaara haddana waa tii dhaqankii afkii ma garan laakiin waxa weeyaan maanta heerkaan marno dee afkii uu sii daciifayo annaga sidaan u hadlaynaa laga gartaa maxay ahayd dhaqankii malaa la moodo inuu dhaqan guur yahay iyo waa dikad baan ku naalnaa ma ogtahay marka meesha ay dikadu waad ogtaho wax kama baxaan meesha la maro waa la maraade soo maaha marka cagtu meesha ku badan tahay wax kama baxaan baa la yidhaha markaas khatartaa baan ku jirnaa markaas waxay ahayd in aanu cilmi baaris ku sameyno waxaan muhiimka sheekadan cajiibka oon ogaano dee wixii ka jira bari hore cilmi baaris baan ku sameeyaa caraweelo waayo waxa ay ila noqotay inaynan ahayn sheeko mala awaala ee ay tahay sheeko taariikheed inkastoon dee maanta sanado ay kasoo wareegtay aan sheekadii isleeyahay inaad dib lagu noqda habboon laakiin way jirtaa wiilwaal baa ka mid a waa sheeko maxay ahaydey maamulka siyaasadeed ee dhulka ka jiray iminka waxyaalo badan oo dhaqaneed baa la qoraa oo bulshada iyo qowmiyadda ku saabsan marka waxaasoo dhan weeyaan waxa xoojinaya maxay ahayd dadka oo maxay ahaydey dhiirigelinaya oo maxay ahaydey inay hore u socdaan markaas waa dantaan ka leeyahay buugga su-aashaada qaybtii kale ku saabsaneed turjumada runtii waa wax aada u adag turjumaddu waxa weeyaan khibrad gaar ah gaar ahaanna markay labada af ay aada u kala duwan yihiin waayo fikirka adduunyada laga haysto qowmiyad kastaba waa u gaar markaa sidii maxay ahayd fikir maxay ahayd lagu cabiray af sidan afkeena oo kale ah inaa lagu turjumo maxay ahayd faransiis waa mid aada u adag waxaan u mahadnaqayaa cilmi yuusuf oo yuusuf cilmi oo maxay ahaydey runtii dee buuggan ila turjumay oo maxay ahaydey gacan weyn ka geystay waa nin aftahana oo si wanaagsan si aada u wanaagsan af soomaaliga u yaqaana laakiin iyadoo sidaas haddana markaan eegno siday gabaygii soomaaligu siduu yahay iyo gabaygii aan ku turjumnay kii faransiiska runtii isku dhadhan maaha markaas waxay u baahan tahay nalasi markaa dadka sugaanyahanta ee faransiiska ku shaqeeya sida hibiyo oo kaliyo hibo muumina kaliyo baa loo baahan yahay dib u sii qaadaan oo maxay ahaydey arrintaas ay de iyagu qaybtooda la yimaadaan oo khibradooda ay adeegsadaan si ay turjumo maxay ahaydey wanaagsan ay uga keenaan waxa aan isagana qadar hadalka siin cabdilaahi axmed oo isagu buugga soo akhriyey ugu horeyn su-aasha koobaad waxay tahay cabdilaahi buugga waad soo akhriday dee nin dhalinyarahana waa tahay intoo badan dhalinyarta iyo aada u danaysa sheekadaasi cilmi boodheri maxaa horta kaaga baxay buugga qaabku u qoran yahay iyo dee nuxurka buugga bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan niiga mahad celinayaa horta martiqaadka ay siiseen oo ugu horeeyo doctor cabdirashiid oo macallinkaygiina ah oo maanta is hor fadhino waxaan u mahad celinayaa oo kale labada directeer iyakuna martiqaadka la siiyey waxaanoo kaloon u mahad celinayaa macallimiinta meesha jooga oo igu horeyso docteeradda sidaa darteed buuggan anigu wuxuu igu dhariyey maarataanay waa cusub yuu beriyey kolkii hore waxaan moodayay waan malqi jiray cilmi boodheri waan malqi jiray suudaan badanna waan ka arkay laakiin haddana waxaa sawiranaya qofku wuxuu sawiran karaa maaragtaanay imaash amba taswiir buu sawiran karaa oo ka haysto suugaanta kolka qaarkood waxaa moodi kartaa dee wax sheeko amba sheeko xariira u haysan kartid
laakiin markaan buugga akhriyey habeenkii u fadhiisay waxaa moodaa ilaa inuu la gaadhay 3 habeenimo. kolkaa waxaa danaynaysaa sheekadan markay shaabitarkan dhammaysid amba cutubkan dhammaysid inaad cutubkii labaad inaad kala goysid oo berito loo dhigatid hay kugu qadarto inaad dhammaysid kolkaa adoona dareemayn saacaddii hay socoto. kolkaa wuxuu qoray buuggan si cilmiyeysan. waxaan arkay kolkii hore waxaa jiray buugaan kaloo laga qoray sidii uu ka qoray maaragtaanay faarax maxamed ismaaciil oo cawl ku magac dheer oo ka qoray aqoon daro waa u nacab jacayl 1974 uu ka horreeyey oo isagana lagu turjumaanay luqad kaloo afka ingiriisiga ignorance of the enemy of love Andrea bedilay Andre Louis isna uu turjumaanay oo ka sii horreeyay kan. waxa kaloo buugaan kaloo isaga lamida oo ka horreeyay oo buugan ka horreeyay waxa lamida Faarax Cabdillaahi Widaajaal loogu magac daro oo dhif iyo jacayl waa dhibaato jacayl oo isna qoray 1977 amba 1974 buug kaloo isna qoray Rashiid Maxamed Shabeelle waa ninkii waxaan jeclahay hodan inankeedii weeyaan oo isna wuxuu qoray madhaba jacayl madhaba jacayl waa loo dhintaa. isagu wuxuu u maleynayay waxaan inuu run yahay dee isagoo dhalin yar baa loo soo sheegay inuu gaadhay ouna caddeeyay wixii. buug kaloo isna uu qoray Faarax Cabdillaahi Idaaja oo ka qoray cilmi boodhari noloshii cilmi boodhari isna uu ka qoray baa jira. documentary kale uu ka sameeyay maaragtaanay Cabdirasaaq Hiriri oo Universal TV ka shaqeeya oo documentary dheer ka sameeyay. kolkaa intaayo buugo isaga ka horreeyay muxuu kaga duwan yahay buugan Cabdirashiid markaan u soo dhaadhaco runtii waxyaalo badan buu kaga duwan yahay. hannaku waxaan nahayn arday ku badatay luqada afka Faransiiska oo maaragtaanay Soomaaligu ha nagu yaryahay saan akhrin karno. kolka hadda laba baashadood buugaanta ka akhridid waxaa dhinacaysay inaad iska joogsato tiraahdid bal amba ay ku adkaata ereyadii ha fahankeeda ku adkaado. laakiin waxaa bedilay qaabkii kolkii hore uu yeelay qaab ka duwan oo luqadii afkii ha ku soo dhigatay isgool lagu keenay oo ku akhriday. kolka waxay ku siinaysaa ambition amba maaragtaan hammi ka duwan hammigii kolkii hore haysay. sidaa darteed baa nagu ajburay inaan buugga degdeg u akhrino. wuxuu ka kooban yahay buuggu cutubyo kala duwan oo badan ka kooban yahay. cutubba ka dambeeya iyuu ka sii xalad baleeyahay oo xiisiyo wanaagiisa ina hasii dhaxgashi doonaysid. waxa kaloo maaragtaanay mahadnaq amba maaragtaanay ina lagu hambaleeyo doctorku dadaalka inta la ko galay waqtiga dheer uu galiyay habeenna dhan u dhaxay maaragtaanay dhulku tagay inuu soo wareyso dadkii yahay waxaan ku dhaceen inankeedii sidii Muuse Carab oo kale raggii tiimwaaga u ahaa kolkii waqtigii la joogay ee halkii la deganaa inuu soo wareyso waxa uu aragtaa run ahaan inay fududeeyeen hawl yarahayn. kolkaa waxaan ku boorinayaa dadka namalqaya amba dhageysanaya inay dadaalka la galay mulihiisii loo xamaan qaato. waa tahay markan haddaan soo noqdo Dr. Cabdirashiid Dr. Cabdirashiid walow ay suugaan badan ay ku jirto buugga sidoo kalena waxaa jirta sidii gaar aad u tunteen isla mar ahaantaana kaga duwan sidayada kale in heeskii oo fanaanka uu qaadayo qoraal ahaanna aad erayadii aad ku soo bandhigaysaan. marka suugaanta ama albumka heesahaasi buugga muu la xidhiidhaa baa la odhan karaa. qaabkeed se u samayseen haddaad wax yar nooga taataabato. horta sidaygu runtii kol baan islahayn buugga aad raacisiin laakiin waanu ka joogsanay waayo dhe waxaa la yidhi maanta CD iyo waxa waa laga baxay waxaa socda maxay ahaday MP3 iyo YouTube iyo waxyaalo kala socdo wax la isku gaarsiiyo. marka sida ahaanteed baa dadkii daabacayay ay buuggeed soo daabacayay ay maxay ahaday ay noola taliyeen. marka laakiin hadafkeegu amba ujeedadeedu waxay ahayd si aanu maxaan ugu qornay Faransiis si aan dhalinyarta u gaarsiino si gabayadan loogu jilciyo baan u turjunay Faransiis aan ugu turjunay
markii labaad waxay noqotay inaa laxan la raaciyo si loo dhandhan loogu gesho waa turjumaadii waa laxankii waa qoraalkii wixii oo is wada xambaarsan baanu soo bandhignay weli iminka ardaydu way wejiyaan goormaad maxay ahaday la helayaa maxay ahaday heesahan aad soo qabateen waayo weli lama soo bandhigin waan soo bandhignay laakiin dee maxay ahaday lama faafin marka waxaan rajaynayaa in FTD-du ay faafin doonto waa tahay daawadayaal bal qadar ayaan wada milicsanaynaa qaabka ay u samaysan yihiin heesahaasi qaar ka mid a dee tusaale ahaan uu doctorku inoo diyaariyey kan waa gabaygiisii ugu horeeyey marka ciwaankiisu ciwaan isagu ma yeelina anagu ciwaankan u yeelna waxaan u bixinay waan dhadhabayaa markaas waa gabayga uu leeyahay niman yahow dharaariya habeen waan dhadhabayaaye dhulka uun baan xariiqaa sidii dhiila ii timide sida qaalin dhugatoobay oo geelii wada laga reebay qaarna waxay dhahaan sidii qaalin dhugatoobay oo geelii wada dhaafay qaarna waxay dhahaan sidii qaalin dhugatoobay oo geelii laga reebay tanbaa nala saxa dhalinyar way dhadee maxay ahaday waa laga reebaa geela hadduu neefku uu dhugatoobo marka sida qaalin dhugatoobay oo geelii laga reebay dhalinyaro maraacee kelaan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabe iyana way ugu dheleelayaan dhamacda daawude markaas faransiisna waxaanu ku turjunnay faransiisna oh ami jour et nuit je tourne en rond je trace des lignes sur le sol comme si un désastre m'est arrivé taasna waa dhaqan ahaan weeyaan markii waa la yidhahaa qofku marka ay walbahaar amba wax ku filmaan inuu meel joogsado oo wax dhulka ku xarxariiqo. Donc je trace des lignes sur le sol comme si un désastre m'est arrivé, tel un chamelan qui a la teigne et qui est séparé des chameaux. Je ne vais pas avec les jeunes, j'erre seul dans le froid. À l'homme qui porte une grave blessure, on le conduit aux soins. Et eux se moquent de moi, les braises de Daoud. Braises de Daoud na kuleba wal madaradi amba ehelki barigas maxay haday aad u dhibaateenay. Markaas waa kan maxay haday isagoo laxan la saaray. iyadoo tusaaleyna nimayahow dharaariyo habeen waan dhadhabayaay dhulkun baan xariiqa sidii dhiilooy timidey dhiilooy timidey nimayahow dharaariyo habeen waan dhadhabayaay dhulkun baan xariiqa siday dhiilooy timidey dhiilooy timidey sida qaali dhugaatoobayo geeli wada dhaafay dhalinyaro maraacee kalan dhaxanta meeraay sida qaalin dhugaatoobayo geeli wada dhaafay dhalinyaro maraacee kalan dhaxanta meeraay dhakhtarka la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabaye dhakhtarka la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabaye iyagna way igu dheeldheelayaan iyagna way igu dheeldheelayaan iyagna way igu dheeldheelayaan dhamacda daawude waa tahay aad buu mahadsan yahay doctor cabdirashiid markan qadar
waxaan hadalka siin aqoon-yahanada barnaamijka nagala qayb qaadanaya waxay ka odhanayaan dee iyaguna siday u arkayeen buugga oo uu ka waramay dee qadar doctor cabdirashiid. waad mahadsantahay doctor cabdirashiid. ma noo sheegi kartaa in si kooban ma noogu celin kartaa in buugga dhuxurkiisa cilmi buudheer waan maqlaynaa inuu buug ku qoray laakiin muxuu yahay horta sheekad maxay tahay? bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkii muuse oo casuumaddan ii soo fidiyey. waxaan hambalyeynayaana doctor cabdirashiid oo maanta yani iskugu horeyso dib aan u kulanno ya annagoo 30 sano yani liisega ku kala tagnay intaan waddan ka maqnaabo isaguna ku soo noqday aad baan ugu faraxsanahay shaqadan uu qabtana inaan ku hambalyaan jecelahay waayo waa shaqo taariikh wuxuu ka sheekeynayo ma aha de legend ma wuxuu ka sheekeynayo sheekooyin ma aha waa taariikh weeyaan ahamiyadda taariikhdu ay leedahayna yani lama ani xagayga taariikhda waan xiiseeyaa waxna waan ka qorqoraa muush hadda nin sheega saaxiibka muuse kolka ahamiyadda taariikhda surtout pour notre pays oo waddan anagu aan nahay dad qoraalku ku yar yahay haddana aan adduunyadu ku baahnay maanta ay ciyaalkeennii ku baahayeen adduunyada ay u baahan yihiin waddankoogii inay wax ku ogaadaan taariikhdoodii wax ka gartaan kolka sida kulaatay ee dee maanta ku garan karayaan waa qoraalka amba internet ka akhristaan amba buug ha ku akhristaan qoraalkaaba gaari karaya dadkii dee adduunyada nagaga baahay kolka doctorka waan hambaynayaa aad baan u hambalyeynayaa taariikhdana inaan ku dadaalno waa waajib weeyaan waa waajib waddani ah ayaan aaminsanahay. asalaamu calaykum. kuma dheeraanaya bes su-aal yar oo kooban ayaan doonayay inaan doctorka weydiiyo. cilmi buudheri maxaa horta maxay ahaydey buugga magaca u qaato cilmi hodan muxuu noqon weyday waayo imika dee meel kastaba waxaa laga eegaa haweenku waa liilaawe baa la yidhaha halkaas mayna dhaleecaynigaga soo jeeda. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan hambalyeynayaa doctor cabdirashiid qoraaga buuggan oo aan leeyahay hambalyo iyo boogaadin fara badan aan usoo gudbinayo. buuggan ay ku dheehan tahay shaqo badan iyo howl badan wuu u galay. cilmi buudhari ama hodan cabdi in hodan cabdi ay saxtaa ma garanayo hodan cabdi run ahaantii waxay ummadda soomaaliyeed ay u taallaa sida Romeo Juliet ay u dadka reer galbeedka sheekadooda ku jirto ama sidaan ugu dhiganay annagu Qays iyo Layla dadka af carabiga ku soo bartay ayay cilmi buudharina afkeena iyo suugaanteena Soomaaliyeed ugu dhigan yahay. runtii waxaan qabaa soo doctorku dhawaajiyay iyadoo sheeka ay haddana sooyaal xambaarsan tahay ummadeed oo laga dhaxarkayo habnololeedkeygii laga dhaxarkayo ummad nolosheedu dhan. soomaaliduna kale way hebaaqba carabka ku dhufataan u malaynay way ka xishoon jirtay inay ay ku hadaaqdo jacayl laakiin dad laga yaabo ka horeeyay inuu cilmi buudhari jiray laakiin jacaylkii gabay ku sheegi waayay. cilmi buudhari sheekadiisu waxa aad u sii caan uga dhigay waa gabayada iyo suugaantaas uu xambaariyay dhacdooyinkiisa koobnaa marka loo eego sheekooyinka kale afafa kale aan ku akhrinay. kolley waan ku hambalyeynayaa qoraaga waxaan jecelahay inuu dib inoogu noqdo bal sidan qaabkan casriga ah ee buugga uu dhex gashay sida ugu soo jiito dhalinyarta afarsiska wax ka qora. waa tahay kolley waxaa loo soo gudbiyey qoraaga hambalyadiina waa loo soo gudbiyey doctor cabdirashiid su-aalana waa lagu weydiiyey doctor iyada oo dee laba su-aalood oo kamid ah ay mid tahay sheekada nuxurkeyga inaad qadar yar fahansiiso ayuu jeclaaban malayn walaalkeen iyo sidoo kale agaasimuhu wuxuu ku weydiiyey hodan maxaad uga reebtay. marka ugu horeysa doctor Idriis su-aashiisa oo ah soo koob nuxurka buugga wuxuu doonayaa inaan kusoo koobo in yar laba midhina hawl qaadatay dhowr sano markaas haddaan idhaaho sheekada cilmi buudhari si bay noo soo gaadhay oo
laga yaabaa inay wax yar ay kala yara duwan yihiin mid kastaba intuu ka hayo laakiin waa la soo koobi karaa waxaa la odhan karaa sheekada cilmi boodhari noo soo gaadhay waa sidan bay u dhisan tahay waa nin gabadh jeclaaday ee la odhan jiray hodan cabdi walanwal hase yeeshee jacaylkiisa ku guuleysan waayey saboolnimo awgeed iyo labada qoyska uu ka soo jeediyo qoyska hodan ay ka soo jeedo oo isku darajad dhaqaale ahaan aanan ku jirin markaas sidaa darteed uu ku guuleysan waayey sidaasna uu ku godgalay isagoo weli gabadhaas jecel marka waa sidaa inagu soo gaadhay laakiin waxyaalo badan baa ka hor imanaya sheekada sidaa u dhisan oo ta ugu horeysa ay tahay waa waxyaalo badan markaas dee waan soo kookoobayna waxa weeyaan kow oo waxay ka jawaabaysaana su-aashii uu weydiiyey agaasimaha muuse cali meegaag oo ah muxuu hodan ay loogu dari waayey dee sheekada hodan kuma jirto sheekada cilmi boodhari hodan iyadaa sheegaysa afkeeda ka sheegaysa inaan arrintan ay qaybba ku lahayn oo waxaa noo soo tabinaya inankeeda iminka waan sheegi lahaa waan tusi lahaa haddaan projecteerku noo socdo laakiin waxay leedahay anugu berigii arrintan sheekadan ay soo baxday anugu ina yar baan ahaa gabadh yaroo waxyaalahaas haasawga iyo waxyaalahaas aan waxba ka garanay marka kolkuu buuggan uu qoray inankeeduna waxaa ka soo baxaya inay 8 amba 9 jir ahayd markuu cilmi boodhari arrintan ay soo aashqan uu habsaday amba ku soo booday marka hodan waa gees bay ka tahay sheekadan maxay way ka baxsan tahay waxay leedahay lama kulmin waxba ismaan wadaadsan ina yar baan ahaa waxbanan kama garanayn arrimahan markaas dhinac walbaad u eegtid 10 sannadood baa la leeyahay sheekadu way soo taxneed aashaqa cilmi boodhari 10 sannadood hodan qaybna kuma laha markaas sida ahaanteed waa sheekadii cilmi boodhari kow talabaadee jirta waxa weeyaan waxay noo iman doona dhowaan bay la tahay cabdisalaam harari oo malaa maxay ahaydey isaguna buug sida sameeyeyna maxay ahaydey reportagekii aanu ka hadlaynay cilmi boodhari ka sheekeynayay waxaa jirta wax la arkayo filinka iyo wax ka dambeeya wuxuu ayaan dhawadii sheegayey inuu maxay ahaydey qoyskii cilmi boodhari ay maxay uga soo horjeedeen ay ku maageen documenteerkan gaar ahaan inan ay walaalahaayeen oo 4 sannadood ka weyn maxay ahaydey hodan ka weynaa 4 sannadood oo leh arrintan waxba kama jiraan waa sheeko la bunbuniyey maxay ahaydey sheekadan dee ma qusayso annaga qoyskayga hodan ma qusayso markaas dee meesha doontiin la mara laakiin dee ana soo dhexgelina markaas waa arrin weyn weeyaan hadday maadaama aynan gabadhu sidaa u yarayd markaas maxaa jira sheekooyinkan dhan uu cabdilaahi soo sheegayay uu soo tiriyey wixii la soo qoray wixii maxay ahaydee amba qoraal amba maqaal baa soo noqotee waxa la leeyahay wax la sheegay gabadh shabada gashaantiya 15 jira oo la jeclaan karo iyaduna jeclaan karto wax qof marka waa mal awal waa sheeko maxay dib looga daba tegay dib maxay ahaydee loo habeeyey sida loo habeeyeyna way noo caddahay oo imika waan garanaynaa sheekadii sida u soo baxday markii qoraalkii ugu horeeyay qofkii soo saaray sidaa baan raadraac baan ku samaynay ilaa waxay nageysay 54kii qoraalkii ugu horeeyay ka soo baxay wuxuu dhisan yahay sidii sheeko xariireed buu dhisan yahay oo welibana khaladyaal badan ay ku jiraan sheekadu saaba isku soo taxaysay khaladyo badan baa ku jira oo de wax la alifay wax laga tegay wax maxay ahaydey la buunbuuniyey waxaasoo dhan baa ku jira sidaa bay wada taxan yihiin marka inaan la hufo bay u baahan tahay laakiin waxyaalo cadcad baa jira oo ah matalan cilmi boodhari weligii uma tegin qoyska maxay hodan si uu weydiiso maxay ahaydey gabadha maxay ahaydey may wada sheekaysan sheeko gaara may wada yeelan xiriir gaara ma wada yeelan dee waxay ahaayeen 2 qof oo kala da' ma soo bandhigin maba jirtaba waxay leedahay iyadu markay soo baxday welibana ay sheekadu soo baxday
waqtigaas ina yar baan ahayoo dee xitaa masar waxaa ma qaadan jirinba markaas waqtigii dambena waaba lee diiday inaan baxaba oo ma bixi jirin markii dambena 2 sanadood dabadeedna waa la meheriyey 2 sanadood dabadeedna waa meesha magaalada way ka tagtayba markaas waa sheekadu waa sidaas markaa nuxurku muxuu yahay waxa weeyaan marka sheekada sidaas aad soo aragtid horta waxyaalahaas markaad soo aad aragtid say wax u soo taxan yihiin marka dambe waa 3 qaybood weeyaan cilmi baaristu mid waxa weeyaan wixii laga qoray wixii laga tiriyey wixii laga sheegay laba waxa weeyaan dadkii bariga maxay ahaydey la noolaa amba garanayay arkay ina maxay ahaydey warays laga soo qaado ta saddexaad waxa weeyaan gabayadii ka tagay wixii maanta noo haro yara xasiloon waxa weeyaan gabayada xitaa kuwaasna 100% ma xasiloona waayo de wax buuga waxaan ku sheegayaa inay qaar ay yihiin matalan gabay waxaad arkaysaa 80 bayda isaguna gabayadiisu waa wax gaagaaban ilaa 30 dhowr iyo 20 iyo 30 bayd weeyaan markaad aragtid mid 80 bayda waxaad oranaysaa maya waxbaa ka jira iyo gabayo maxay loo tiriyay isagoo meelna aan ku keedsanayn waxyaalo badan baa saa uga soo baxaya laakiin waxa jira qaar la hubo oo maxay ahaydey la oran karo uu tiriyay waa dad badan baa sheegay waa sida xadiiska kolba inta qof soo tabisa magan baa xaqiijinaysa inuu maxay ahaydey gabaygaas laga yaabaa inuu isagu tiriyay markaas maxaa laga dhadhansan karaa waxaan u imanayaa nuxurkii oo duuduuban magan waxa laga dhadhansan karaa waxa weeyaan horta kow cilmi boodhari waxa ninkii ilaahay u naxariistay isaguna sanadkooda buu hooyday oo dadkan waa dad wada hooyday weeyaan kii ugu dambeeyey garanayay sanadkii dhaweyd buu hooyday khalaas markaa qof arkay oo indhaha ka qaaday dee ma hayno cilmi boodhari marka ninkaa muxuu sheegayay ninkaa wuxuu sheegayay ina cilmi boodhari xitaa hodanna way sheegaysaa buugga wadashiid maxamed shabeelle qoray inay loo haysta nin waalan nin miyirla oo waalan ina loo haystay marka isagoo sidaa sheegaya baan ka soo qabtay oo dee waa dhegeysan kari lahaa markaas ninkaas si nin maxay ahaday maankiisa maanku ka tegay amba dee ku daciif yahay amba dee adigu nin waalan loo haystay baa jirta kow ta labaad kolka gabayadii adeegtid waxaad arkaysaa gabayo runtii aniga dareen igeliyey amba ixasuusiyey gabayada ay tiriyaan suufiyiintu inagu suufiga waxaan u naqaanaa dee qof waalanba magan markaas suufiyadu ay tiriyeen oo jacaylka dee la xidhiidha jacaylka ilaahay ay u qabaan magan waxa weeyaan waa jacayl tandhaafa oo ilamaa marka dambe dee la yidhaaho qofkii wuu washayba magan laakiin de waa waalimada nooc kalaa marka gabayada amba sugaanta ay tiriyeen qaar baa shabahaya amba maxay ahaydey ina xasuusinaya gabayada Boodhari qaar baan tusaale u soo qaadanaya waxa weeyaan matalan marka la sheegay jacaylka qofka jacaylku heerku qofka gaarsiin karo marka nin suufiya baa qoraya wuxuu yidhi waa af Soomaali baan ku tarjumayaa nin baa bari gabadh si waalan u aashaqay laakiin inay isku tagaan waa la xarimay subax iyo habeenba calaacal baa haystay waxna ma cunayn mana seexanayn jacaylkii dibadgaleen buu ka dhigay siliciisu dhammaad ma lahayn muxuu jacaylku marka hore uu yahay wax dile jawaabtuna waa tan waa si kuwa jacaylka dhabta ah unan hayn loo garto marka buugana inaad xasuusanaysid moojiye waa Faransiis waa de waxa weeyaan waa lagu turjumaad markaas waa Faransiis baan ka soo turjumay markaas waa sheeko weeyaan kan gabay maaha waa kan waa sheeko yalo sheeko gaabo sheeko tusaaleyn weeyaan markaas waad arkaysiinoo sheekooyinka kale ee hordhaca u ah amba qaybta hore buugga kaga jira ina sheekooyin dhaba waa 4 sheeko dhaba oo la xiriira jacaylka oon maxay ahaday markaan berbere tegay
la yidhi ninkan wuxuu daba socdaa wuxuu ka qorayaa jacaylkii cilmi boodheri nin nala socday nin wadaada oo nala socday uu yidhi walan waxba kama garanaya jacaylke laakiin waxaa lay sheegay sheekadaas sidaas markaasuu sii daynaya sheeko jacayl oo dhaba markaasuu ka odhanaya waatan magaaladan soconay meeshaan soconay magaaladan bay ka dhacday marka xitaa waxaa jirtaba sheeko jacayla oo waktiga labada qof ka soo kala jeedeen turnaadka hargeysa ay iskula joogeenba oo telefoonku qabsanaya odhanaya haye halkee arrintii ay socotaa waa laba dhalinyaro oo aada isku jeclaaday sheekadii oo dee maxay ahayday meel xun gaadhay buuqaad markaas maxaa dhacaya sheekooyinka waxaa ka muuqata mid wax la siinaya lacag oo la odhanaya gabadha iska daa oo ilow gabadh kalena waan ku dhisana haye buu odhanaya mid kale waxay odhanaysaa way ashkateynaysaa markaasaa markay ashkateysay qoladoodii iyo maxay ku ashkateyso baa la odhanaya warda gabadha ka hadh sidee baad leedahay sidaa hadday tahay waama ka hadhay buu odhanaya oo yamantuu tegaya ma garatay marka dambe uu soo noqonaya gabadh kale uu gudsanaya marka sheekooyinkaa jacayl sidaa bay ku baabaanayaan laakiin ta cilmi boodhari sidaas maaha waxa weeyaan sheeko aada uga duwan markaas laba kaloo waxaa jirta jacayl oo tusaaleynaysa heerka uu joogo waxaa la xidhiidhaa sheekadii uu cumar soo qaaday ee qays iyo leyla waa qays waxa loo yeedhayo waxa boqol baa u yeedhaya wuxuu ka odhanayaa waad leyla waad nagu wareereysay waa kuwan 20 hablood oo ka qurux badan leyla kol u eg laabtooda cad oo mid ka dooro qays madaxuu furuurinaya oo kor uma soo qaadi karayo markaas buu boqolkii ka odhanayaa war maxaa ku haya oo hablahan aad u eegi laadahay markaasuu qays ugu jawaabaya boqolow jacaylkii leyla baa halkan iila taagan seef oo ileh waryaa isla weynow walle haddii aad mid kale isha aad ku dhufato oo aniga aan ahayn qoorta baan kaa jaray markaas maxaa ku xiga muxuu leeyahay cilmi boodheer gabayna muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa tixdan waxa gabaygan buu qayb baan ka soo qaatay uu leeyahay madhabtaba ma galo ruuxu hadduu aamingoos yahay madhabtaba ma galo hadduu ruuxu aamingoos yahay axdigaad ka booddaa jannadaa ooda kaa xidhiya adigiyo shahaadaaduba waad isku alla seegteen ha u oonsan aakhiro waxaad urursataa yaalle marka arrintaa maxay matalaysaa waa ashqa waaxidka ah ma arkaysaa markaas waxa weeyaan waa siday u adeegsadaan suufiyiintu marka ay sheegayaan aashaqa quraata ee maxaa yeelay ujeedka amba maxaa yeelay loo leeyahay ilaahay abuurtay waa tahay aad buu mahadsan yahay doctor cabdirashiid markan qadar hadalkan siiyo cabdilaahi waxaad si kooban noogu dulmartaa suugaanta buugani ku dheehan ee aad kala kulantay ee cilmi boodharidii hibaaq aad baad u mahadsan tahay wallaahi gabaygu akhrintiisu aad bay u adag tahay bal waxaan isku dayay inaan luqeeyo kolkaa dadkii dhan ee akhrinayaba aad bay ugu adkayd laakiin bal waan isku dayay lay dulqaatada haddaan khalada sameeyo wuxuu yidhi cilmi boodhari gabayaashiisa de intii oo dhan ma soo wala qaadan laakiin beedbeed yaroo hadalka murtidiisa nuxurkiisiia ayaan ka soo qaatay oo amba faraas ha noqoto amba laba ha noqoto ka u horreeya wuxuu yidhi waxaa caynba cayn looga dhigay dadku ha is caashaqaani amba ha is cajabiyaani labada eri waa isku mid kolka nacam wuxuu sheegayaa hodan wiilka iyo gabadhu waxaa layskugu abuuray inay iscajabiyaan laba qof oo guur ka dhexeeyo amba qof kasiba dooq uu leeyahay kolka isagoo hadalkii haddana sii wado wuxuu yidhi kolkaad hodan tidhaahdaan waan soo hinqanayaa hadday hawl yar idinila tahay aniga waa hoogaygii nacam wuxuu ku leeyahay iyaku dad baa jira maaragtaanay wax naca oo imika dariiqa markaa maraysoo kale rag baa barida nacoo kaleo waryaa bari baa laga odhanaya uu kasii jeesanaya qofkii kolkaa laakiin uu soo jeesanaya qofkii cadhaha isaga dareemaysa wax dhibaatada soo gaadhay ma ogtahay kolkaa isagu wuxuu ka leeyihiin isagoo dariiqa iska maraya iyay raggu soo marayaanoo waxay ku odhanayeen hodan bay ku odhanayeen kolkaa isagu meel baa taabsanaysay dee
inuu joogo degdeg buu soo jeesanayay kolkaa wuxuu ku leeyahay ninku waxa hadalkiina waxa u leedihiin si yaro fudud wax yaro fudud baa u leedihiin laakiin aniga meel iyay taabanaysaa hillaac baa barbara iiga baxay hodan agteedii nacam wuxuu imaajininayaa isagu meel hargeysoo kale hadduu joogo barbara waa meel ka dheer kolkaa wuxuu habeenka siba haw tusaalaysanayaa inuu hodan garab joogo kale wuxuu isleeyahay qofka biniaadanka waxa ugu roon inaa wax u dirtid markaa qof jeceshahay waxaa siin kartaa kaadow amba maaragtaan waxa jeceshahay kolka hadiyad kolka cilmi iyo hodanna waxay nolol ahaan way kala sarreeyeen iyadu waxay ka dhalatay qoys meel saraa isna wuxuu ahaa qoys meel hoose ah oo nin furunla waa tusaalayn kartaa wuxuu amba qof u xidhi kara dee kaado ahaan haddaa la idhaho haw qof u xidhi karo kolkaa isagiibaa isla hadlaya naftiisiibaa isla hadlayso wuxuu isleeyahay haddaan hadiyad caano ugu diro holigabaa gubanayey nacam holigu waa waxaanay ku qaataan maaragtaanay caanaha lagu shubo holigabaa gubanayey maxaan kula hagaagaa yartani way han weyn tahay ya uu isla yaabaya isagu wuxuu isleeyahay haddana caanahan ugu dirayo qofkan wuxuu leeyahay hamigeedu ka weyn yahay dee nacam halkan aanu taaganahay iyadoo meeshay joogto way ka sarraysaa kolkaa isagiiba haddana dib iskula hadlayoo leh yartani way han weyn tahay kolkaa bal maalin baa loo yeedhoo layidhi maaragtaanay cilmiyo hadalkiibaa naga daymi weydoo socodkiisii maaragtaan waa aniga hodan u yidhaahdee bal kaalay noo kaalay baa laga yidhi gabadhii baan kugu yeedhanay guri baa la geliyey gurigii markii la geliyaa laga yidhi maqsinkaaduu fadhi gabadh baa u yeedho waxay ka tidhi dee kaalay maxay ahayd hawl ila qabo siday doontaba ahaatee kolkaa iyadna waxaa la doonayaa inaan la tuso ou arko maqsinkiinoo lasii fadhiisiyey fursad la siiyo iyadii waxaa ka soo shaqeeyey muuse carab nin la yidhaaho maaragtaan isagoo ugu dhowaa kolkaa markay imatay gabadhii yaa laga yidhi bal maqsinkaa wax nooga soo qaad kolkaa waxaa la doonaya inay labadii weji isla kulmaan ay is arkaan kolkaa markii isagu haw maqsinkii joogow dee suu iska fikiray uu seexdaba hurduu galay way soo gashay gabadhii way aragtay waxay doonaysay bay ka qaadatay way iska soo noqotay kolkaa way iska tagtay dee haya salaamada way ka turo way iska socotay iyadoo danteedii way dhammaysatay isagu u hurdayntaa goor dambuu soo ambaaburidii oo soo kacay kolkaabaa laga yidhi dee waa nakay kuu soo gelinay hodane maxaa ula hadli wedaydii kolkaaba tix yaroo isna haw tiriyadii halka gaadhaabay hurdadu way xuntahe maxaa i seexshay muusow kuu hugoobayey maxaa hodan i weedaarshay hoogii hay joogtiyo maxaa hilinkii iga duway dahab lama halleeyee maxaa hawd ku ilaaway nacam wuxuu leeyahay qofka bini'aadamka fursigii yuu ka calacalayaa oo isleeyahay in badan baa sii wadnaaya laakiin waqtigu noo saamaxayn bal intaa baan kusoo ururin waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdilaahi markan gabagabadii ayaan soo gaarnay balse iyadoo uu noo soo xiri doono de barnaamijka agaasimaha dhaqanka hadalka u dambeeya uun hasiiyo doctor cabdirashiid iyo wuxuu ugu dambeyn kusoo gunaanidayo barnaamijka waxaa ibaaqay maanta waxaan isku keenay waa buuggan sheekadan cilmi boodhari runtii waxa weeyaan waxay tusaysaa imika intaas aan maanta isla aan wax wadaagayno inay adag tahay fikir kale laga qaato sheekadii cilmi boodhari fikirkaayna soo gaadhay ee jacaylkaa ka dhexeeya cilmi boodhari iyo hodan inuu maxay ahday kaasun weligii jiri doona laga yaabo cilmi baadhista doontida kusoo dara laakiin kaasuu jiri taasna waxay iga tusaalaa maxay ahday cabdilaahi sideedu u sheegay imika sheekadan qaybtan dambe ah markuu maxay ahday seexday maxay ahday cilmi boodhari waxaan doonayaa inaan ila akhriyo sheekadoo gaaban oo ina tusaysa sheekadan seexashadu iyo maxay ahday gama-an hadyo goor uu gam-ayo cilmi boodhari siday maxay ahayday sheekadoo kaleo maxay ahayday aan ka soo daalacday
sheekooyinka yar ay ku sheekeeyaan suufiyiintu wuxuu sheegayaa nin aashaqay isaguna nin aashaqay oo walbahaaray ayaa tuur yar dusheed seexday isagoo taahaya gabadhii uu jeclaa baa soo agmartay waxayna aragtay isagoo hurda waxay u qortay markiiba erey meesha ku habboon waxayna ku xidhay gacantiisa markuu toosay wuu akhristay warqaddii qalbigiisiina waa isrogay waayo waxa ku qornaa markaasa waxaa la moodayaa sheekadii cilmi boodhadii oo kale un waxaa ku qornaa war adigan dareenka la sara kac haddaad tahay ganacsade shaqayso si aad lacag u heshid laakiin haddaad caagani tahay soo jeed habeenkii caabud rabbiga ilaa waagu baryaayo oo noqo addoonkiisa laakiin haddii uu aashaq ku hayo xishood muxuu yahay jacaylka hurda mar haddaadad ahayn sidan amba sidan ood ka maran tahay iftiin ha isku aaminin si qaldan inaad i jeceshahay haddii qof wax jeceli meel seexan karo aanan ahayn kafankiisa dhexdiisa isaga unbaa isjecel waa tahay aad buu mahadsan yahay doctor cabdirashiid waa tahay gabagabadii barnaamijkeenaan soo gaarnay iminka hadalkan siiyo un agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha islaamka ee dhaqanka mudane ducaali xasan axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هباقي وما سنتهي ما أنت قلنكي أقونتو ما أنت حكوسو بندعي هلكن بو يمدي أن معد كدراسات دبلوماسي كدراسات كأيو يمدي موسى ونو ما نقينا ما أنت سقون مرتي هاي أنا هباقي ونكو ما نقيا سنوغو شرفيسي هلكن نوغو معزومتي تكلمت عن فرحت بإيت هاي ما أنت عبد الرشيد buugiisii anoo ka qayb gala cilmi boodhadhi waa farxad gaar ah aniga ayay tahay taasina waxay ka turjumaysaa wasaaradda ugu horeeya wasiirkayga muumin xasan bare inaan danaynayno saan ugu saro qaadi buugaanta saan u saro qaadi lahayn akhriska buugaanta waxaan xasuustaa Mandela oo lahaa un peuple qui lit est un peuple qui gagne dad wax akhriyay waa dad wax guulaystay waa kiilaha Mandela markaasi akhrisku waa wax dadka horumarinaya oo bulshadan horumarinaya bulshadu markay wax akhriso ay horumar gaar ah yeelataa taasina waxa weeyaan wasaaraddeeda annagu hoos timaado san u tartarsiin lahayn buugaanta weeyaan marka wasaaraddeedu annanka intaan joogo waxaan qaraar badan qaadanay san u tartarsiin lahayn buuga iyo qalinka san u tartarsiin lahayn san ugu soo dhaweyn lahayn dadka wax akhriya iyo dadka wax qora san ugu soo dhaweyn lahayn taasi insha Allah le 17 décembre anigu maanta halkan ka faa'iideysanaya oo ugu yeerayna insha Allah waxa jiri doona journée nationale de l'artiste waa ayaantii fanaanka ba fanaaniinta markaas waxa ku jira journée nationale de l'artiste iyo la yiraahdo afka qalad markaas waxa ku jira insha Allah oo sameeynayna buugaanta oo la bandhigo markaas Djibouti ku dhan wixii wax qora buugaanta wax qora buugaanta wax ka qora inay buugaantooda keenaan ay halkaasi oo exposition wax la yiraahdo lagu furayo buugaantaas markaas halka ay ku iibsan doonaan oo nu yeeran waliba dadkii kale wax akhrisanayay halkaas fikradeedu waxa weeyaan seen iskula kulansiin lahayn qofkii qoraagii ahaa iyo leeytay dadkii wax akhrinayay seen iskula kulansiin lahayn ay halkaas weeyaan taasina waxa ku jirta oo halka lagu kala iibsan lahaa livrantina buugaantina waa raqiis wax 3,000 iyo 2,000 iyo dhawaan waa kaanaka ku sameeynay hay'ad Institut National de IFAR tawana ku sameeynay taas waxa weeyaan san annakuna aan wasaaraddeedu hoos timaado san u dardar gelin lahaynay dadka reer Djibouti dadkani écrivainyaasha reer Djibouti qoraaga reer Djibouti siday u iibsan lahaayeen buugaantooda si dadka reer Djibouti buugaantooda annagu muhiimad waxaan siinayna walibana dadka qoraaga reer Djibouti si buugaantooda u hirgelinahay si buugaantooda loo iibsan lahaa yan halka insha Allah taasina waxa kamida walibana on bandhigi doona insha Allah oo madaxweynuhu furi doona journée nationale de l'artiste ku jirta insha Allah le 17 décembre dadkii waxa soo bandhigay walibana waa 3 cisho soconaysa buugaantaasi waa foire deliver afka qalad wax lagu yiraahdo
ولبنا foire de exposition et vente de tableaux وبوغان وبندقات فدات dadka بانتوركا tableauyaasha waxa wax ka qora dadka ku dhamaanto occasion waxaan ka faa'iideysanayaa dadkaas reer Djibouti saan ugu yeeri lahayn oo iman lahaayeen 17-keega 18-keega 19-keega in say u iibsan lahaayeen hadday haato boog hadday haato wixii gacmaha lagu qorayay ee dadka wax qoraaga ee buugan tableauyaashan sharaxada waxa ku sameeyeen waxaan ugu yeerin iyakuna inay ka soo wada qayb galaan ayaanta ka soo qayb galaan madaxweynaheenu Ismaaciil Cumar Geelo furayo taas waxay tahay wasaaraddu aanu ka faa'iideysanaya intaas ta kale waxaan ugu mahadnaqayaa Cabdirashiid oo qoraa ah nin caalim ah Dr. Cabdirashiid oo ugu mahadnaqayo buugan oo cilmi boodhari buugani haddaan u soo noqdo waa buug dhaxalgal noqonaya waxa weeyaan bibliotheque nationalka waa la sameynaya waxaana sheekooyinkan oo uu ku qoray walibana Afrasiis dadku walibana Afrasiis bay ku wada akhristaan maanta waxaan ku buurin lahaa dadkeena wax dhigta ciyaalkeena iskoolka in buugaantan oo kale iskool lagu dhigo bas ka dadkani fikradda uu iska dhaxarkaya waxa weeyaan waa dhaqankeeni waa istuwaarkeeni waa wixii annako aan lahayn inaan ku faanahayn waa sheekooyinkooni weyn qofan maanta cilmi boodhari arkin ama maqlin ma jirto cilmi boodhari sheekadiisa qofan maqlin ma jirto waa la wada danaynayaa waan malayaa taasina farxad gaar ah aniga ay tahay oo maanta waliba waxaan ku buuranayaa in waliba af Soomaali laga dhigo oo af Afari laga dhigo ya afka wadanka lagu hadlo in waliba laga dhigo baske annagu waxaan leenahay dhaqan kale oo gargaaran leenahay af Soomaaligii af Afarigii af Carabi lagu qoro sida fikradaha loo tabin karo fikradaasi waa fikrad fiican waxa weeyaan waan ku boodaarinayaan intiina ka soo qayb galana waan igu mahadnaqayaa si loo soo qaadi lahaa qalinka iyo aqoonta buuga si loo soo qaadi lahaa waan igu mahadnaqayaa hibaaqay waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتهاي إن أدي أيوم هاتسي هاي أجاسمها دقن كه وزارة دارما دقن كإسلام كه مدنه دعالي حسن أحمد واتهاي داود يال وحن سوقني قبدي برنامج كنا يضع عدد كيسني إن كسو قادني بوجع علمي بودري إسلام رهان تانا إن كسو مرتقاني إن أما مرتشرفتك بدوكاها دكتور عبد الرشيد محمد إسماعيل waxaanan u mahad celinayaa ugu horeyn labada agaasime waa agaasimaha aan martida u nahay macadka daraasaadka ee diblomaasiyadda Djibouti mudane Muuse Cali Migaag iyo sidoo kale agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda arrimaha dhaqanka iyo islaamka mudane Ducaali Xasan Axmed oo isagu soo saarka barnaamijkan cadadkiisani nagala qayb qaatay ama nala taakulay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Dr. Cabdirashiid oo isagoo halkan buugiisa noogu bandhigay sharaxaad dheeraad ana naga siiyay waxa kale oo mahad celinayaa Cabdilaahi Axmed oo barnaamijka nagala qayb qaatay iyadoo sidoo kale aan mahad celinayo aqoon-yahanada sidoo kale barnaamijkeenani nagala qayb qaatay waxa kale oo mahad celinayaa waa sawir qaade Ayuub oon isagana aad ugu mahad celinayo annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafinaa nabadgelyo amaana Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Qamuuska ku kaydiyo qabyada ka jiri